kani waa Ashraf Ghani oo madaxweynaha Afghanistan ahaa maalmo ka hor laakiin dawladdiisa lagu afgamiyay muddo 2 asbuuc Ashraf Ghani oo dhashay sanadkii 1949 bishii May 19-keedii Ashraf Ghani oo noqday madaxweynihii 14aad ee dalka Afghanistan Ghani ayaa loo doortay inuu dalkaasi madaxweyne ka noqdo 20 bishii September 2014 sidoo kale waxaa mar labaad loo doortay dalkaasi inuu hogaamiyo 28 bishii September 2019 Ghani wuxuu ka baxay kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Columbia University sidoo kale wuxuu wax ka bartay jaamacadda American University sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyay bangiga adduunka sidoo kale wuxuu ahaa qabiir dhanka warshadaha dhuxusha ee wadanka Ruushka oo in muddo ka shaqeynayay 24 sano kadib Ghani dalkiisa ayuu dib ugu soo laabtay waxa uu noqday la taliye la socda qaramada midoobay sidoo kale waxa loo magacaabay wasiirka maaliyadda dawladda uu hogaaminayay dalka Afghanistan Hamid Karzai laga soo bilaabo 2002 ilaa 2004 isagoo ka hortagayay musuqmaasuqa sababta lagu dhiibana waxay ahayd maadaama uu ku taqasay dhaqaalaha inuu wadanka ka maareeyo xagga dhaqaalaha kana dhiso kaabayaasha dhaqaalaha wadanka in la soo celiyo maadaama wadanku oo sagxadda hoose ee burburka dhaqaalaha soo taabtay